السلام عليكم. وأنا أصحابي كسو دواada qalinka maanta iyo muuqaal cusub fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar siina share garee like tana ka ilaawin si dhiirigelin noogu noqoto mahadsanidin kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkeena maanta asxaabay waxaan kaga hadli doonaa sidee ayuu Erdogan ugu soo noqon doonaa qabiilka mise laga yaabaa soo noqoshadiisa inay fududaa doonto mise waxaa jira waxyaabo kale oo dhici doona waxaan sidoo kale idin soo bandhigi doonaa doorka jameecada Laxdulbaydaa ee Cusmaan garab siinayso juska labaad mise laga yaabaa in Cusmaan safkiisa ay ku soo biiraan dagaalamayaal ka socda jameecada Laxdulbaydaa haddii ay jiraan yaa ugu caansan sidoo kale waxaan idin soo bandhigi doonaa sababaha Bamsi uu kaga soo muuqan doono qaybaha ugu horeeya ee juska labaad iyo xilliga uu ku soo laaban doono si kooban macluumaadyo intaasi in ka badan waxaad ku daawan doontaan muuqaalkeena maanta fadlan nala dhameyso kadib markii ay noo cadaatay ku soo laabashada Erdogan juska labaad waxaa la isweydiinayaa su'aalo ku saabsan habku u soo laaban doono ma waxa uu ka soo muuqan doonaa qaybta koowaad ee juska labaad mise waxa uu ka soo muuqan doonaa dhowr qaybood haddii qaybta ugu horeysa ee juska labaad uu Erdogan soo muuqashadiisa ay dhacdo si toos ah ayaa ka dhigan in soo saaraha filimka uusan si wanaagsan wax u dhigin inkastoo taas weli aysan cadeen haddii aysan dhacdo waxaa wanaagsan in qaybta labaad laga dhigo si markaas loo soo bandhigo safarka soo laabashada qabiilka iyo dabinada badan ee wadooyinka ay u dhigeen waxaa sidoo kale cad muhiimadda jameecatu Laxdulbaydaa iyo sida ay uga caawin doonaan Erdogan soo laabashadiisa maadaama ay jiraan cadow fara badan oo doonaya inay qaarajiyaan inta uu soo gaarin qabiilka caawinaadda Laxdulbaydaa iyo sidoo kale Cusmaan ayaa sahli doonta in ugu dambeyn inuu ku soo noqdo qabiilka haddaba daawade qaybtee ayaa jeclaan lahayd inuu ka soo muuqdo Erdogan macluumaadyo intan in ka badan waxaa idinkugu soo gudbin doonaa muuqaalka xiga waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share garee like ta ka ilaawin si dhiirigelin noogu noqoto mahadsanidin